meeqa madaxweyne ra-iisul wasaare iyo guddoomiye baarlamaan oo waddankan soo mara ayaad dhakhtar u noqotay? may waxaa la sheegay in aan muxuu ahayto mas-uuliin badan aan u noqday waa badan yihiin oo ka soo bilaabato muxuu ahayto madaxweyne allah u naxariistay maxamed siyaad barre oo dhakhtar usoo noqday asiga iyo cayladiisaba sanadihii u dambeeyey. waxaa kaloo ku xigay madaxweyne cali mahdi allah u naxariisto oo asigana aan dhakhtar usoo noqday. saas oo kale madaxweyne cabdiqaasim salaad xasan waa madaxweyne usoo noqday asiga iyo prime ministerkiisii iyo guddoomiyihii baarlamaankaba kow. saas oo kale waxaan usoo noqday maaragtay madaxweyne cabdullahi yuusuf on consultant u ahaa asiga iyo prime ministerkiisi cali maxamed geedi. saas oo kale waxaan usoo noqday dhakhtar usoo noqday madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed asiga iyo prime ministeradiisii iyo guddoomiyihiiba guddoomiyihii baarlamaanka. saas oo kale waxaan usoo noqday maaragtay madaxweyne xasan sheekh oo xilligii hore madaxweyneha ahaa asna waa usoo noqday asiga iyo prime ministeradiisiiba iyo guddoomiyihii guddoomiyaashii dhammaan waxaa ka mid ah oo hadda hata aan u ahay sheekh aadan madooban u ahay jawaari aan usoo ahaa. marka madaxweyneyaashaasoo dhan waxaan usoo noqday dhakhtar, prime ministeradaasoo dhan waxaan usoo noqday dhakhtar, guddoomiyaashoo dhan waxaan usoo noqday dhakhtar. waana runtii oo sharafeena ii tahay maanta meesha inaan ka sheego maxaa yeelay dad sharaf leh ahaayeen oo runtii mas-uuliyiintii waddankan ahaa inay i aaminaan iguna aaminaan nafsadooda inaan dhakhtar u noqdana waxay ii tahay maanta runtii sumcada ii tahay maaragtay maasha allah.